سأقول العلاية روب كنا داعي تلفون مرضى موعي قال وأخو صوب حالي داعي الباب كيبان لقى فرق مكاس علي داعي هبلاي عويان ومجوك تالي داعي ولا لي روب يقول داعي عد كان وعد كان يعني جودي عن إسبانيا وايه محاد عوائل kulanti wacan asxaabta meel kastoo aad joogtaan runtii waxaa maanta farxadii ah inaan la kulmo walaalkay Dalmar Cadow Maalin Dalmar waa aqoonyahan marka hore waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo Dalmar soo dhaw waa dhawahay Maxamed Qadar Cabdi sida quruxda badan ay ugu soo dhaweysay page-ka quruxda badan kuma santaa waa tahay Dalmar dabcan waxaad ii sheegtay oo aan hore uga wada sheekaysanay in qisooyin cajiib ah marka laga hadlayo dhinaca jacaylka iyo dhinaca kale marka la eego bulshada iyo la macaamilkooda ka soo wajahay waxaan jecelahay bal inaan ku horeeyno mid ka mid ah qisooyinka jacaylka ku taalada kugu reebay aad la kulantay marka hore bal waxaad inooga warantaa qisadaas jacaylka qaabkay ku bilaabatay iyo halka ay ka bilaabatay fafaahin guud bal naga sii اوكي بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waan kaaga mahadcelinayaa mar kale sida qurux badan ay wacasuntay barnaamijkani quruxda badan leh magacaygu waa Dalmar Cadow Maalin sida hore u sheegtay horta qisad jacayl sida way badan tahay laakiin su'aasha isweydiinta mudan qof naafa ama qof aragan naafa ka qabo jacayl horta ma qaban karaa xiriir jacayl ma sameyn karaa wax ma qaban karaa jawaabta inay horta ay soo baxdo ay isweydiiyay tahay ha qofkani hadduu naafo yahay iyo hadduu naafo jacaylka siiso wuu qaban karaa jacaylkana siiso waa indhana ma laha dhagana ma laha jacaylku waa baaxad weyn yahay ani hadda ka hormaro laba jacayl ayaa soo martay inta dunida aasaarnaa jacaylka koowaad waa waxaan iska baranay qof social media aan iska baranay waqti badan aan isku bixinay runtii gabadhaasi markaan bartay waxay ii ahayd sababtoo anaga haddaan aragga naafa ka qabno ama dhalinyaro aragga naafa ka nahay qofka suuradiisa ma aragno laakiin biqalbiyan aan u dareennaa iyo sawdka ama codka macaanta oo quruxda badan leh gabadhaasi ay leedahay gabadhii in badan aan wada soconay waxaan ugu dambeyn aniga waxaan isweydiin jiray haddii gabadhan aan u sheegto inaa aragga laadahay ama kaa carartaa almost waxaan wada soconay 2 sano iyo bar ayaan xiriir lahaynay aan la kulmaynin haa jacayl la xiriira gabadhii jacayl ayay ii qaaday aniga waxaan iska baranay social media Facebook aan iska baranay aalada Facebook aan iska baranay anigana inta badan xikmad baa qori jiray sawirka aan ii saarnaa aan xilligaas Facebook ii saarnaana ma muujinayn in aragga la ahay because ookiyaalo baa ii xirnaa sidaa baa ku xalinay waxay ahayd wax xasuustaa 2015 markaas Facebook igu horeysay aan sameeyay bishii 6aad ilaa iyo waxaan isla soo jaan qaadnay 2017 bishii 11aad waa dareemi kartaa waa 2 sano iyo ma zaada xiriirkaas baaxad weyn marka waxaan dhahay xidhada aan kulanno markaas aan u sheegay haddii aan kulmeyno in wax walba qof bani aadan u yahay inaa ku qaadanayso laakiin weli aanan u carabaabin inaa aragga la ahay waxaan ku kulannay beerta nabadda xilligaan waxaa joogay Kenya Soomaaliya waxaan imaaday 2017 bishii 3aad ayaan Soomaaliya imaaday oo xilligaas aan waxbarashadeedii dugsigii sare aan soo dhameeyay kadib wadanka ku soo laabtay gabadhii ilaan Soomaaliya joogtay kadib waxay dhahday beerta nabadda ku kulmeynaa waan aqbalay عزومات واحد سوستا بشي 12 تاريخ مركز 25 ديسمبر 12 iyo 30 دقيقة بعد المغرب أي هبين
galab habeenkaas habeen axad baxayso isniin soo galayso ma iloobi doonin taariikhdeeda waa meel igu qoran waayo gabadhii waa ku kulanna meesha waan wada hadalnay xilli habeen ah aan caadi u sheekaysanay oo kiyaala suudkay ii xirna kulankii koowaad isbarashay ahayd maana dareensanin ciidana gabdhaha la socday ana hal wiil baa ila socday oo caawi ii ahaa ushan waa iska soo dhigay ushan maana wadanin maalinkaa waa wada sheekaysanay kulan xigto oo aan qabsanay 3 January maalina jimco ay ahayd oo 9 ama 3 galabnimo aan ku kulmayno hotelkan la yiraahdo Busy House oo Busy House meesha ku kulmayna aan ku heshiinay waa aqbashay ana waan aqbalay marka sidaan u socono ilaan jacayl ay haayo gabadha markan waxaan ka rabaa inaan guursado waxa ii sheegtay gabadhi ama aniga u sheegay aan dhahe in aan araga alla ahay runtii waxay ku naqatay ama kaag way aamin weysay oo kiyaalaan u siibay in qof ila soconin keligii aan socdo wax walba aan isticmaalo runtii ma qiyaasi kari wallahi haddaa dhaho waan ka sheekeynayaa runtii waxaa dareemi karaa nabaro ama waxaan aan filan karaynin inay soo dhacdo kale runtii waxaa la yidhahay kuwii lixaadkooda qabaa maar u weyne halkay geenaynaa qof aragga naafa ka qabo muxuu ii qabanayaa maxaan ka dhigaynaa ragnimo uma aqaaniba qof hadduu aragga beelay ragnimoba uma aqaani ma daneeyey unba qofka sidaa markaas waxaa ku dhahay mahmaah ayaa dheesaan dhahay indhaha haddaa laadahay maleida qalbiga oo ah Englishkan afka qalaad lagu dhaho blind eyes is not blind mind macnaheeda indhahaas haddaa laahay qalbiyan malay runtiina waa way aqbashay laakiin horaa loo dhahay sir naageed lagama salal gaaro dabin la ii dhigi doono ma garan kari kadib iyadoona aan ku faraxsaneen ayay aqbashay in xiriirkii aan sii wadno waxay igu casuuntay gurigeyga kugu casuumaya oo ku yaalo degmada Howlwadaag xaafadda Geejacayl ayaan kugu casuumaya ay igu tiri waan aqbalay anigoo soo koobaya markaan telefoonka aan lambarkii horan aan ka hayay aan xiriireynay maalin ayaa la iblamiyay bacda duhur xaafadii anigoo soo labistay ayaa waxaa dhacday roob inuu doo anigoo marayo lambar 4 marna maana ka niyajabin la kulanka qofka xiisaha aan u qabo in waqti aan soo qaato gurigii la ii tilmaamay bajaajkii way igeysay way iga tagtay albaabkii gargaraacay roob baa da'ayo anidan dharkayga dhan wada roob ayuu noqday ku dhawaad waxaan taaganahay 3 saacadood baa meesha taaganahay ilaa iyo 9 ama 10 loo sii dhow yahay galabnimo loo dhow yahay runtii waxay ii ahayd arrin aan nolosheeda aan iloobi karin qof baan dareemay inuu albaabkayga furay heblaayo ma joogtaa markaan dhahay codkeedii ma joogto iyadaan ila hadlayso it means that inaani wax maqleen sidee guriga ku tagtay telefoon baa igu hagaysay gurigiina way ku tilmaamtay telefoonay kugu geysay laakiin markii meesha la tagay telefoonkii lama heli karo noqday waxaan qasbanahay ninkii bajaajlaha waa daaqsan oo dhahay inaa iska fasaxo saa ugu celcelinayay roobkiina da'ay telefoonka mar dambe oo iga galay waa ku soo baxaa la yidhahay albaabkii baa laga furay markaasaa la yidhahay heblaayo aawayaan dhahay waa ma joogtaa la yidhahay walaalay roob baa igu da'ayee codkan waa codkii aniga gabadhii aan isbaranay waaye maxaa dhacay waaye markaasaa la yidhahay adeerow waa qaldanta aniga qof naafo ah waxaan u aaminsanahay inuu dabarsoo u aaminsanahay gabadha aan raadinaysinna ma joogto soo lugoysay waxaa igaga daran dharkayga oo idil way qoyeen telefoonkayga
laftirkiisa biyo ayaa qayb ka mid iga gaaray waxaa markaa waxyar socday oo areas la yidhaahdo waxaa ku dhacay godkaas oo inuu ahaa boosaneer miyaa maogi meelaha biyaha lagu daadiyo bulaacadda ayaa godkaas la galay oo dharkaygo idil nijaas iga naqday waxaan sameeyaa garan la ah ilaa magaalana waa jooga xaafadaydii waa degmada Dharkeenley way ka fogtay halkan howlwadaagii Dharkeenley waa wax badan baa u dhaxay so jacaylkaas xanuun ayuu lahaa murug ayuu lahaa laakiin runtiina maana isleedin gabadhii sidaasaan ku iloobay waa gartay waa dib u soo noqotay bal ka waran waxaad sheegtay in jacaylkaas uu nabarrab adag kugu reebay bal ka waran sidii aad uga dawowday ama uga buskoot wallahi horta qof aragna Afrika qabo haddana dhibaato maray way adag tahay sidoo qof ku aamino laakiin waxaan isxasuusiyay aan niyad iska dhaadhiciyay in horta magaalada Muqdisho dhan ka tago oo gobol aan aado darteeda xogaa aan maskaxdayda soo dejiyo Facebook wala social media aan iska kansalo telefoon kale aan oo nicilaa in iska qaato codka aragana dadka loogu talagalay ay leeyihiin iska isticmaalo idaacadu iska dhageysto waxaas weydaan ku mashquul gool baan iska aaday xogaa iska soo habagadistay ku dhawaad 6 bilood 7 bilood baan iska maqnaa aan soo laabtay